Waxaan guursaday habaryartay macaan ninkeeda. Sheekadeenna sidatan ayay ku bilaabanaysaa. Waa qiso ama sheeko ama arrin hore u dhacday oo nala soo wadaagtay gabar joogta Nairobi, Kenya. Sidatan ayayna ku bilaabanaysaa. Waxayna naga codsatay in loo faafiyo sheekadeeda si ay u gaaraan culimada. Walaal haddaba haddii aad dhagaystaha ka mid tahay, isku day inaad sii sheer garayso si ay walaalaha kale ay u maqlaan ayna u sii sheer garayaan insha Allah. Wixii fikir ama dhiirigelin ama waano qaybta commentiga ugu reeb biidnillah. Sheekada waxaan sii gudagalaynaa qisadeeni. Waxaan ahaa ayay leedahay gabar. Waxaan joogay Nairobi. Waxaan dhacsanayay nolol maalmeedkayga ama nolosheyda. Waxaan la deganaa ayay leedahay gabdho oo waxaan la bixinayay kirada. Boqol ayaan isla deganeen. Waxaana aadi jiray subaxii saaloon oo waxaan ka shaqaysan jiray ama aan ka dhacsan jiray nolosheyda. Muddo dheer kadib habaryartay macaan ayaa isoo wacday. Waxa ay leedahay waxaan rabaa inaan soo guuro Nairobi aan soo dego. Waxaana rabaa inaan ii raadiso guri si aan cimilada u badashto ama hawada aan u badashto. Waayo habaryarta waxay kasoo baxaysaa ama ay kasoo guuri rabtaa Canada. Muddo dheer kadib gurigii ayaan helay ayay tiraahday. Waan hagaajiyay. Habaryartayna way imaatay. Markay imaatay ayadii iyo ninkeedii iyo carruurteedii waa ay soo degeen magaaladii. Muddo dheer kadib habaryar waa ay nala joogtay nolosheedii iyo waxaygo dhan ayada ayaa kafaalanaysay ama kafaalo qaaday. Anigana sida caadadeyda ahayd saaluunkayga ayaan iska aadi jiray waayo waxaan ahay gabar. Waxaan u baahanahay shopping si kastoo la ii dabiro cuntadeydii iyo meeshaan seexanaya laga kaafiyo. Haddana waxaan rabaa shopping iyo waxyaabo qaas ii ah aniga. Waxay socotaba arrintii maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday habaryar inay xanuunsato waddanka ay la qabsan weyso. Kadib waa ay laabatay oo waxay iskaga laabatay waddankii ay kasoo guurtay. Waxayna tiraahday guriga iska fasax. Waxaad gelisataa qol yar aniga ayaa kaa bixinayo. Sidii ayaa dhacday. Habaryar way baxday iyada iyo ninkeedii way laabteen iyo carruurteedii. Maalin maalmaha ka mid ah adiga markay kasoo wareegatay cabaar oo waddankii tageen ay nasteen. Kadib ayaa waxaa isoo wacay leedahay habeenaha ka mid ah abtigay macaan oo qaba habaryarteyda. Saas ay tahayna ka hor waa uu isoo xariirin jiray oo biilkii iyo waxaan meesha ku isticmaalay ayuu iisoo diri jiray. Habaryartay ayaa kala hadashay ayay tiraahday. Muddo dheer kadib habeenaha ka mid ah anagoo sii seexanayo ayuu isoo wacay. Wuxuu igu dhahay yaa kula jooga. Waxaan ku iri qof ila jooga malahan. Wuxuu igu dhahay waxaan rabaa inaan kuu waramo ama arrin sir ah aan kuu sheegto ee kaliya waxaad sameysaa ama aad ii ballan qaadaa inaadan qof la wadaagaynin. Wixii hanti aad jeceshahayna sheego ilaa iyo xad inta aan awoodo waa ku siinayaa. Anigay aadayaan u dhahay tiraahday waa maxay sirtaan ku dhahay. Wuxuu igu dhahay ii ballan qaad marka hore inaadan qof la wadaagaynin. Waxaan ku dhahay haddii ay macquul tahay waan kuu ballan qaadayaa ee soo daa hadalkaada. Sidii ayaa dhacday. Wuxuuna ii soo bandhigtay guur. Wuxuuna igu dhahay kama helin habaryarta intii muddada ahayd aan qabay. Waxayna ii dhashay carruur fara badan. Saas ay tahayna kama helin imana qancin. Waxaan rabaa inaan adiga ku guursado waayo halihii aan idinla joogay ayaan aad kaaga helay dhaqankaaga iyo quruxdaadaba. Anigay aad ayaa u dhaxay leedahay waayo waan ama kaagay waxaan ku hadla ayaan garan waayay. Waana dhankaana waxaa iga xigta habaryartay macaan dhankaana ninkeedii oo ereyadaas ileh. Waxaan ku dhahay berita markaa shaqada aadi isoo wac waayo waxaan rabaa inaan kasoo fikiro. Habeenkii dhan maanan seexanin fikir ayay igu noqotay. Ninkana wuxuu ii ballan qaaday lacag aan maskaxdaada galaynin. Anigii waxay tiraahday waxyaabo badan aan ka fikiray. Muddo dheer kadib wuxuu isoo wacay adiga markuu shaqada aaday. Break time xilliga la qaadanayay wuu isoo wacay. Waxaan ku dhahay diyaar waaye. Isla markiiba wuxuu ii soo diray lacag gaaraysa $4,000. Anigii waa yaabay aadaa u naxay tiraahday. Ninkii $4,000 ii soo diray wuxuu dhahay qodbastiraan isku mihirsaneynaa cidna ogaanaysana malahan. Xilliyada fasaxa oo aan soo qaato aan Nairobi imaanayaa. Xilliyadaas aan kula aqalgalayaa waxayna qodbastir ayuu noo ahaanayaa cid ogaanaysana malahan. Anigii gabar yar ayaan ahay maskaxdana wuu iga xaday hungurina wuu i qaaday tiraahday.
magaalada aan joogana waa magaalo yacni qof kale uusan caawinaynin Nairobi yacni dadka joogaa garan karo kadib lacagteyda 4 kun oo doolar aan qaatay wixii kadib aan ku samaystay iyo wixii kalena hooyadii ayaan ku qabsaday ayay tiraahday aniga waan aamusay kadib bishii markii ay dhammaatay wuxuu ii soo diray biil iyo lacag haddana 4 kun oo doolar ah aniga gabar yar ayaan iska ahay lacagtii haddii aan arkay aad ayaan waxay tiraahday qalbigayga uu u qaadan waayay ninkan hungurina wuu i galay iyo shaydaanna wuu i raacay tiraahday ninkii muddo dheer kadib sidaas markuu ii biilaayay hooyadeeda lacagaan u dirayaa waxay leedahay lacagtan faraha badan intay ka keentay markaas waxaan ku dhahay hooyo shaqo culus aan helay yacni shaqo fiican aan helay saas ula soco maba ogaba inaan u iqabo wiil ninkii qabay walaasheed macaan anigii waxayga waa qarsaday ay tiraahday waan iska aamusay muddo adiga 9 bilood ilaa 1 sano markii laga joogo xoolihii sidii aan u cunayay ninkiina uusan imaanin ayuu ii imaaday leedahay xilliyada fasaxa si aan loo dareemin waayo hadduu markasta soo baxo waa la dareemayaa inuu magaalada Nairobi yacni ama wadanka meesha u socdo ee qof aga horeyso naagtiisana wuu ka baqayaa ayay tiraahday wuu ii imaaday markuu imaaday waxay dhahday guura dhacay yacni aroos weyn maan dhiganin laakiin waxaan dhiganay wax yar oo iska gaabay qol ayaan hagaagsanay ninkii markuu soo degay wuxuu ugu dhahay aniga uur ma rabo inaad qaado ee waxaan aadaynaa fasti dhakhtar waxaan kuu soo gelinayaa cirbadda ilmaha ka hor tagto ilaahay qudradiisa anigii oo cirbadii igu jirta ayay tiraahday ayaan waxaan sameeyey yacni waxaa imaaday qadartii rabbi oo waxaan qaaday uur asagii aad ayuu u carooday tiraahday uurkii markaan qaaday kadib markaa uurka qaadayana waa maruu maqan yahay hadduu joogi lahay waxay ahaan lahayd uu iga soo xaaqi lahaa laakiin muu uusan joogin uurkii markaa qaaday adiga 2 bilood kadib anigoo isgaran waana yaraaya tiraahday ma aqaano uurkiigana bil iyo xoogo 2 bilood uu barayaan wacay waxaan ku dhahay waa saasaan ahay dhakhtaraan aaday kadibna uuraa la igu soo sheegay aad ayuu u carooday wuxuu ku dhahay yacni sidaan maana rabin cirbadda wax may tarin miyaa adiga calaa kulli xaal waxay ahaataba lacagtii wuu iisoo jiray waxba igama uusan goosanin lacag fiican ayuu isiin jiray oon xad dhaaf ah cunugii aan dhalay waxay tiraahday cunugii markii aan dhalay dadka dariska ah yacni waxay ma ogo inuu abtigay iqabo waxay ii malayaan nin Maraykan ka imaaday kaliya inuu iqabo wiilka cunugii aan dhalay tiraahday gabar ayaan dhalay waxay tiraahday indho iyo dhago iyo san midna ma lahayd tiraahday kaliya adiga wax uu ka neefsado wuu leeyahay laakiin dhagihiina way ku yaalaan maqal male arag ma lahan ay tiraahday wax uu kala ogyahayna ma lahan waa uu cunugii wuu iska weynaaday tiraahday aniga cunugeyga waxba kuma aanaa sameynin waayo 2 qalad ma geli kariya tiraahday cunugii waa iska korsaday muddo dheer kadib 2 sano kadib wuu imaaday asigii cirbadii iigu jirto haddana isla qadar rabbi cunug kalaa qaaday tiraahday uurkiisa sidii aa dhacday haddana inaan waco u sheego xaaladda markaan aad ayay usii xumaanaysaa ay tiraahday saas ay tahayna biilkii wuxuu isiinayay iyo lacagtii oo yacni maskaxdeeda uu ku gadaayay igama uu goosana sidii ayuu ii siiyaa maalin maalmaha ka mid waxay tiraahday aniga waxaa caabila ayaa hooyadii isoo wacday waxay igu tiraahday hooyo waxaan rabaa inaan soo aado Nairobi waxaan rabaa dhakhtar inaan la kulmo dhakhtar caafimaad yacni waxaan ku dhahay tiraahday maya hooyo aniga fursad kuuma hay dhakhtar waxaan kuuga geeyay laakiin lacag kuusoo diraa magaalada Muqdisho ka raadsan dhakhtar fiican waayo waxaan qarinaya tiraahday uurka aan leeyahay iyo gabadha yar oo ii joogto oo abrirteeda ilmaheeda la aabe ah ninkeeda ayaa qaba cunugteedana xataa bahal hadduu kusoo socdo ma arki kartay dhahday haddii agteeda baata lagu qaylaa waxba baqleyso marka sidaas ay ahayd waa cabsaday tiraahday hooyaday lacag fara badan u diray waa iska joogtay anigii waan dhalay tiraahday isla haddana sidii cunug waxaan dhalay tiraahday oo dhago lahayn maqal hadleynin waxba yacni indhoolo waaye dhagaha ma haysto ma hadli karo ma soconaayo labadaba waxay dhahday gogolay saaran yihiin ilaahay amarkiisa waxay tiraahday waa iskaga sabray tiraahday haddana aniga ilaahay dambi ayaan hore u galay tiraahday qalad ayaan galay waan iska aamusay cunug ilmihii waa korsaday ninkii muusan soo laabanin laakiin lacagtii sidii igu soo diray tiraahday dhakhtaraan aaday waan xanuunsaday aadaan u xanuunsaday dhakhtaraan aaday dhakhtarkii markaan aaday waxay igu dhaheen ama dhakhtarkii aan la kulmo ii sheegay inaan waxay tiraahday makaanka nabar weyn uu iiga yaalo dib dambana aan u dhali karin anigii waxay tiraahday waa qaraacmay isbitaalkii waa kasoo bixi waay tiraahday koomaan galay kadib markii aan gurigeygii imaaday waxaa igu soo booday tiraahday dhiikar heer waxaan gaaray tiraahday ilmaheygii aan qabsan waayo oo yacni habeenkii hataa markaan seexanahay kaniin aan ku seexdo maalintii kaniin aan ku seexdo marka waxay leedahay arinteeda heerkaas ayay maraysaa waayo khiyaanadii aan sameeyey iyo laqdabadii
ayaa sidaas ii gashay. Habaryartay macaan ayaan xaq ka galay ayay tiraahday. Maxaad igula talin lahayd ayay leedahay ummadda Soomaaliyeed. Haddii aan dambi ku suganahay ama dambi aan galana yacni shay wax xumaan aan sameeyana ha liiga kaafiyo ha liiga jaahil bixiyo tiraahday. Si oo yacni qaladkayga inkastoo aanan sixi karin laakiin aan isku dayo in aan saxo. Wixii fikri ama dhiirigelina qaybta commentiga ugu reebo gabadhan insha Allah. Waxayna leedahay yacni magaceedii iyo waxeedii dhan way qarisay. Waxay tiraahday arrinteeda inaan hadalkan aan banaanka soo dhigo mooye cid kale ilaa hadda ka warhayso waalidiinteeda ma jirto. Marka magaceedana maysa sheegin. Waxaa idinka codsanayaa wixii yacni fikri qaybta commentiga ugu reebay insha Allah. lana wadaag walaalaha kale si ay ugu duceeyaan. Waxayna tiraahday qofkii yacni fahansan diinta xaggeeda yacni ha iga soo jaahil bixiyo. Haddii aad awoodaana waxay tiraahday iigu sheer gareeya culimada insha Allah. Waxaan idin leeyahay akhyaarta qiimaha iyo quruxda badan. Haddii aad hore noola sii joogtay waad nala sii joogtay waana la joogtay waadna ku mahadsantahay la joogistaada iyo qiimeyntaada quruxda badan. waxaad isku daydaa oo kaliya inaad muuqaalkan sii sheer garayso like-na siiso insha Allah. haddii aad nala joogin oo nagu cusub tahayna isku day inaad channelka subscribe garayso gambaleelkana on ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oo aan soo dhigo insha Allah. waxaan idinka sii tagayaa tan iyo kulinta dambe. wabilaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.